والسلام على رسول الله وحشرف وينه إنه مانتا مسوق على مدحوينين دول قبلت كل شباب هذا هو حسناي مدير مدحوين كسروا قبل كهيران وحي ورقة وحد أو متقنا تسجيلات ومدة أذنه بيانيست أي كاسو جيسا أقوسو دوينيا قبل كهيران قارعان تقبل بردوينه مدير مدحوين كسروا قبل كهيران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال مدح قبل كهيران waxaan markaan oo wax kala ma aha waxa weeye wax badan oo meelaha ka socday ummadda inay si fiican uga dharagto waxaan ka imin magaalada xamar dulmi ayaa lagu hayay xamar Soomaaliya yani horumarkeeda anigu kumaan soo arag cadaaladna kumaan soo arag dulmi cad oo bareer ah in lagu sameeyo dowlad goboleedyada kuwa loo arko markaa inaysan weli lugahooda ku istaagin xaqiiqda waxa ay tahay waxa socda haddaanan laga hortegin isteedyo badan oo kalena qorshahaas iyo kuwo kasii foolxanaa weli ugu degan waxaan rabaa inaan ummadda iyo shacabka ku dhaqan Hirshabeelle guud ahaan ugu bishaareeyo madaxweynaha sharciga inaan aniga ah qaabka lagu doorto dhammaantiin goobjoogayaal ayaad ama ka ahaydeen ama warbaahinta ayaad kala socotay madaxweyne nidaamaa lagu doortaa nidaamka lagu doorto nidaam lamida ayuu ku baxaa qol mugdiya inta la galo inuu ra'iisul wasaare hago asaga oo yiraahdo hadda ku dhawaaqa oo kadib annagoo joohar joogna oo dhahayna waxba kama jiraan yiraahdo waxa ahaa yani markuu arkay doodeen inaan maxuu ahaa xataa waxna lagu soo eedeeyay inaysan jirin inuu yiraahdo maxuu ahaa hadda u gudbiya qaab kastoo aad ku gaarsiin kartaan yani email ugu dira ama gacan saar uga dhiga ka saxiixa xildhibaanada inuu yiraahdo wax badan oo cadeymaha waa idin haynaa hadduu ilaahay yiraahdana waa soo bandhigaynaa maalmaha halkan aan joogno laakiin shaqadii dowlad goboleedka sideedii u shaqaynaysaa anigu waxaan ku shaqayn doonaa magaalada leeyahay beledweyne haddii ay shabaab meel qabsadaan dabcan inta laga tagayo meesha kale lagu shaqayn karo lagu shaqayn lahaa dowladdii dhexe hadday ayadu fawdo isu bedesho oo ay jowhar marka ayadu qabsatay oo ay waxay rabto annaga ka samaynayna tiri dabcan inaan meel kale hadda tagno kuna shaqayno ayaa waajib ah mana uga tanasulayno cid dulmi wadda cid rabta sharciga inay jibiso cid rabta waxaanan jirin inay sheegtaan annaga ma uga tanasulayno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadweynaha deganaan iyo xasilooni waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada amisom waajibaadkii ay lahaayeen sidooda inay gutaan waxaan rabaa inaan ugu baaqo ciidamada kale sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ugu baaqo bulshada caalamka ah wixii xaqiiq ay u baahan tahay waa u haynaa waana usoo gudbinaynaa waana hordhigaynaa waxaanan diyaar u nahay nidaamka dimuqraadiga ahaa ee xorta ah ee xalaasha ahaa ee nalagu doorta mid la mida in xilkana la wadaa wixii ka sokeeya laakiin waa baadilkaana waxaa kow ka ah ra'iisul wasaare khayre isaga ayaa ka dambeeyey isaga ayaa ka shaqeeyey booliis wasiirada ayuu adeegsaday dhaqaale ayuu ku bixiyey wax walba oo caddeyna ee loo baahan yahayna waa soo bandhigaynaa mana yeeli doono mana dhici doonto in waxuu ahaa يعني انت waxaa la doordoobo in jowhar maamul laga dhiso waa cadaalad darro anigana wax waajib ugu ah dastuurka inaan ilaaliyo dastuurka ilaalintiisa waxay koob ka tahay ma aha adiga waxaad ku dulminin keliya waxa waaye ay dulmi nooc walba waxaan aad uga xumaa inuu waqti badan ka hor ayaan idin imaan lahaa laakiin waqti badan inuu iga lumiyey madaxweyne farmaajo oo aan aaminsanaa inuu sharciga dastuurka isaga naftiisa ilaalin doono balse sida ii muuqata aanan wax dana iyo heella ah ka lahayn xaqiiqdu waxay tahay markay yimaadeen waxaa si aad u weyn shaki ah loo qabo inayba dowlad goboleedyada iyo nidaamka federaalka inaysan raalli ka ahayn ayadiina maanta waa muuqataa waxaan idin leeyahay insha allahu tacaala ummadda iyo la hadalkeeda
waxaan ka dhigan doonaa saacadaha soo socda maartay hadduu ilaahay yidhaahdo waana shaqaynay xildhibaan la imaanaya wasiir la imaanaya shaqadu waa soconaysa haddii jowhar lagu shaqayn waayo beledweyna lagu shaqayn karo وعليكم السلام ورحمة الله